wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose dawlad goboleedka Hirshabelle oo muddooyinkii ay soo dhaafnay ay ku guda jirtay dardargelinta go'aadan dhismaha dawladaha hoose ee degmooyinka dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta tababar waxay u furtay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle kuwaas oo laga soo xulay shacabka ku nool degmada Jowhar ugu horeen waxaa kulankaasi ka hadlay agaasimaha waaxda dawladaha hoose ee dawlad goboleedka Hirshabelle waxa aad muhiim u ah shirka maanta intaanu ay isugu timid reer Hirshabelle ah waxa ka sii muhiimsan ujeedka laga leeyahay ujeedka shirka maanta aan isugu nimid wuxuu hordhac u yahay ama uu yahay qayb kamid ah qaybihii oo marxaladihii la maraayay ee kala duunay ee loogu gogol xaaraayay in la dhiso konsalladii degmooyinka waxaan soo marnay shirarkan ka horeeyay kuwa kala badan oo ka dambeeyana way jiri doonaan maxaa yeelay waxaan ka soo guurnay marxalad isku dhaxyaaca waxaan rabnaa inaan u baxno marxalad kala dambeyn iyo mataqaanaa qofba inuu qofka uu ku aamini karo masiirkiisa oo wax u dhiibto sidaas marka ay tahay marka waxa laga maarmaan ah in la helo dad khubaro ah oo mataqaanaa naga wacyi gelisa oo nabarta habkii aan mari lahayn iyo jidkaan u mari lahayn arrintaas iyada ah gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meer Makraan ayaa ka hadlay ujeedka tababarkani waxaan rabaa dadka Hirshabeellaha Dhexe dhammaan waxaan u maleeyahay hadda degmooyinka wax laga keenay waa degmada Jowhar dadka meesha fadhiyo haday yihiin wax garad odayaasha meesha ka muuqdo iyo culimo u diin iyo dhalinyaro iyo haween ururka dhalinyarada iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan rabnaa in laga faa'iideysto barnaamijkan waa barnaamijkii muddo badan la sugay waa barnaamijka aad idinku waxaad leedihiin ama idinku waxaad soo doorateen oo la xisaabtami kartiin aad ku keensan lahaydeen waxa hadda dadkan loo soo xulay degmooyinka konsalada laga dhisaayo waxay ka mid tahay degmada Jowhar ay ku ka tahay waxa la rabaa gudoomiyaha degmada hadda door kuma lahayn in idinka keenisiis laakiin waxa la rabaa biri inaad door ku yeelatiin oo idinku aad tuulooyinka fadhiisatiin aad ka doodin oo qofkii soo sharaxo aad adin kana anficimaya kana anfaca aragtidiina inaad wax ku kala dooratiin bilaadanka qofka kaligeeda ayaa dooq leh oo wax doorato marka bulshada dhan dooqeedu waxa kamid ah waxa hadda leedin wado ama leedin sheegi doono wuxuu yahay barnaamijka marka waa barnaamijkii gudoomiyaha degmada Jowhar lagu soo doorala qaabkeedii wadadeedii iyo sidii loo gaari lahaa ayaa hadda bilowday haddaad barito idin kala timaadeen qofka hadduu xumaadana birita haddana dadkii ka doodaya asay waxay leeyihiin waxa uu naga ballan qaaday wuu noo qabo waay waxa uu noo sheegay shalay been nama anfaca kan waxaan rabnaa markii in si fiican looga faa'iideysto laakiin haddii seminaarkan uu igu dar aan maanta qutulyoonka ka helay ahayd taas faa'iido keenime bilaasha ku soo dhacayna meel ibran ku soo dhacayna marka adinkoo aad u mahadsan waxaan rabnaa wasaaradda arrimaha gudaha oo federaal iyo waxa joogo Hirshabelle iyo hay'adda barnaamijka daadiyayso loo xil saaray marka aad iyo aad in looga faa'iideysto waxa laga macluumaadka meesha laga kulmana qof walba inay gaarsiiso dadka kale meesha la joogo ama diriska leh hadaadan adigu gaarsiin oo adiga la isku koobto inta ka qaad hadan isku koobto dadkii kale wali sidooda waa dhagaxran yihiin muddooyinka ay soo dhaafnay ayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawlad goboleedka Hirshabelle waxa ay waday kulamo ay la qaadanaysay qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe kaas oo ku aadan dardargelinta nidaamka dawladaha hoose ee dawlad goboleedka Hirshabelle Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV-ga Kalsan magaalada Jowhar